السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صومالي وعبد الرشيد علي مير عبد الرشيد علي الشيخ محمد ومقعي اوفيشال كأبو حوي، لكن آبهاي الله نحرسته وحو عن كل حي وصومالي وتقانا علي مير. marka hadaan idho Cabdi Cali Sheekh Maxamed iyo hadaan idho Cabdi Cali Mire waa isla labadii qaab weyn. Waxaan rabaa caaw inaan ka hadlo Puntland iyo Khaatumo iyo Somaliland. Arrintoodii waa nagu daba dheeraaday, khilaafkoodii waa nagu daba dheeraaday. Maalin kasta ma taqaan dagaal joogta iyo xagga weerarha loo qaaday iyo xagga weerar loo qaadaa nagu batay. Marka waxaan rabaa caaw inaan ka faalloodo. waxaan markaa hadalka u kala jarjarahayaa laba qaybood. qaybta ugu horeysa waxaan kula hadlahayaa madaxweynaha Puntland Muuse Biixi Cabdi Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Puntland Professor Maxamed Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. qaybta labaadna waxaan kula hadlahayaa laba nin oo la kala yiraahdo Cali Khaliif Galayr iyo nin la yiraahdo Cabdullaahi Cumar Camey. marka labada madaxweynaha ku hormarinayaa hadalkooda waa soo gaadinayaa. waxaan si fiican ugu dheeraanayaa labada nin oo dambe oo sheegay oo reer Khaatumo waa Cali Khaliif Galayr iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Cumar Camey. حاجي عمل وعن وحبا وما سيبانا مقعيسا كالي إنكاس إنا عمل وعان كوياهي وضيل يقام بأوه عان ميد أقوه رئيسا لماذا مدحوينه ومدحوينها Somaliland iyo madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay niman yahow Soomaaliya hadda way ka soo gudubtay xilligii dagaalka iyo xabadda. waxay maraysaa xilligii dib u heshiisiinta, nabadda, wada hadalka, saamaxaadda, iscafinta, iswalaalaysiga, israacitaanka iyo wadankii Soomaaliya dib loo dhiso asagoo dhan. kadibna la baadi goobo Soomaali galbeed iyo NFD. Soomaaliya meel ay caalamka ka nooshahay hadda arrintaas aan ka hadlay bay diyaar u tahay, laakiin diyaar uma ahan Somaliland iyo Puntland oo mid ku duulahayo diyaar uma nihin. adinku marka laga hadlayo siyaasadaha Soomaaliya ragga waxaad ku jirtaan rajo ka qaba waliba waqti dhow inay Soomaaliya oo isku duuban madaxweyne ka noqdaan labadiin. waa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiweli Cali Gaas. haddaba marka arrintaas hadday qalbigiina ku weyn tahay, Soomaaliya 4 sano kadib waxaa la diyaarinayaa inay noqoto hal qof iyo hal cod. si marka shacabku idinkugu rido marka doorashada waa in dagaal meeshaas uusan dib dambe u dhicin. midka haddeertaan la isleeyahay idaacadaha aan ka maqlayn iyo qalabka warbaahinta aan ka maqlayno dagaal baqarka loo saarayo wala soo fadhiyaan ciidamada inaad kala qaadaan, dib dambena aanan u maqlayn dagaal baa iyo duulimaad baa labadaas Somaliland iyo Puntland ay macnaha jilibka isku laabayaan oo u dagaalamayaan. arrintaas aakhiri adduunba waxaa idinkugu jirta, sharaf baa idinkugu jirta, raxmad Ilaahay baa idinkugu jirta, dembi dhaaf baa idinkugu jira. inaad aakhiro Ilaahay jannat firdaws idinku abaalmariyana waa dhici karta, waana u badan tahay. marka labada madaxweyne intaasaan dhahayaa. waxaan u gudbahayaa labada nin oo kale waa Cali Khaliif iyo ninkan Cabdixakiin Xaaji Camey. horta maxaa Khaatumo Somaliland iyo Puntland dhibaatada dhex taala waa Khaatumo. waxaa weeye marka hadday Khaatumo tahay waa ina marka Khaatumo aan si fiican u lafagurnaa arrinteeda. marka Khaatumo waxay u kala qaybsan tahay laba qaybood.
qayb waxaa hogaamiya ninkan la yiraahdo ina xaaji cabdixakiin xaaji camey puntland iyo cabdulle cali gaas buu hoos fadhiyaa dhinaca kale waxaa hogaamiya cali khaliif gallayr awalna wuxuu hoos fadhiya siilaanya haddana muuse bixuu hoos fadhiyaa haddaba marka si marka aan sawir guud uga bixiyo arrinta khaatimo aad u fahantaan adinka soomaalida marka hore waxaan kugu cabirahayaa xaaladda guud oo Soomaaliya iyo xiriirka ay la leedahay khaatimo kala qaybsanaanteedu kadibna international macnaha adduunka caalamka oo dhan ayaan idinkugu cabirahayaa asagana xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya kala qaybsanaanteeda iyo lugta uu ku leeyahay inay Soomaaliya kala qoqobnaato oo kala qaybsanaato waxaan ka bilaabayaa Soomaaliya waxaa wada in khaatimo ay laba u qaybsanto oo qaybna ay raacdo Puntland qaybna ay raacdo Somaliland waxaa ka mas'uul ah marka labada nin laga tago oo ina Cami iyo laga tago ina Galleer laga tago nin channel oo Ethiopian oo Tigray wuxuu fadhiyaa Hargeysa oo Ethiopia iyo ninka la yiraahdo Xayla Maryam Disale wakiilka channel kale oo Tigray wuxuu fadhiyaa Garowe oo Xayla Maryam Disale oo Ethiopia wakiilka labada nin baa waxay ka shaqeynayaan in khaatimo laba loo kala gooyo qaybna Puntland ahaato qaybna Somaliland waxay kaloo ka shaqeeyaan inaan Somaliland iyo Puntland wada hadlin oo aysan heshiis dhex marin waxay kaloo ka shaqeeyaan channel kale oo Soomaaliya fadhiya inaan ahlu sunna wal jamaa aysan u gelin oo aysan la heshinin nimanka la yiraahdo galmudug oo calaamad saldhigoodu yahay waxaa timaada baydhabo ku kala fadhiya oo channel asna Tigray oo asna Ethiopian waxaa fadhiya Kismaayo mid kale oo channel oo asna Ethiopian waxaa ayagu dhan kor ka xukuma ninkii la oran jiray Gabre oo Soomaalidu aad u yaqaanaan shaatiga inta hoosta marsada bastoolada yarta galka ka bixiya oo dabada gashada Soomaalidu jiro bajin jiray waxa weeye marka ayagoo dhanna waxaa soo dirsaday Xayla Maryam Disale lixdaas nin oo janamada Ethiopia ayay wakiil uga yihiin Xayla Maryam Soomaaliya marka nimankan yaa keenay wadanka Soomaaliya nimankan janamada Ethiopianka gebigoodaba ciidamadooda iyo siyaasiyiintooda wadanka yaa keenay waxaa keenay Afrika jabhadood oo 78 waxaa baxay SSDF nimanka la oran jiray nimankaas keenay lixdan Ethiopianka iyo Ethiopia ciidamadooda iyo shacabkooda inay Soomaaliya soo galaan nimankaas keenay waxaa kaloo keenay nimankii baxay 80kii asna la oran jiray ayaga keenay nimankaas ayaguna keenay waxaa keenay nimankii baxay 82 oo USC la baxay ayaguna jabhadaha waxaa keenay June 89kii nimankii baxay oo ayaguna SS la baxay SBM la baxay afarta jabhadood kuwa waxay haystaan Hargeysa kuwana waxay haystaan mataqaana Garowe kuwana waxay haystaan meesha la yiraahdo magaceeda Xamar bay haystaan kuwana waxay haystaan Kismaayo waxay marka ay marayaan jabhadihii waxa laga dhaxlay oo Soomaali ay dhaxal siiyeen afarta jabhadood oo 78 ilaa 89kii baxay oo amxaro wada aaday Soomaaliya maxay u keeneen oo dhaxal siiyeen waxay u keeneen in lix jaran oo Ethiopian Soomaaliya hadda ay xukumaan waa marka aan ka hadlayno Afrika iyo Soomaaliya tusaalna waxaan kugu soo qaaday ahlu sunna wal jamaa iyo khaatimo iyo janamadaas baydhabo waa la mid Kismaayo waa la mid inta kale Soomaaliya waa la mid haddaba waxaan u gudbaynaa marka adduunka kale international aadana iyo caalamka hadda Soomaaliya waxaad ogtihiin oo ilaa ka maqlayseen Michael Keaton oo nin Ingiriis ah oo wadanka hadda London aan ka hadlayo ka tagay oo UN-ka u shaqeeya inuu Soomaaliya UN-ka wakiil uga yahay oo xalna fadhiya Xamar madaxweynaha runta oo Soomaaliya anuu ninkaas aan oqaan Cabdirashiid ahaan asagii baa Hargeysa tagay muxuu tagay warkiisii waan dhageystay wuxuu yiri waxaan u Hargeysa inaan xaaladda colaadeed oo hadda ka curatay Somaliland iyo Puntland inaan xiisadaas qaboojiyo wada hadalna la bilaabo baan u imid macnaheedu waxa weeye madaxweynaha rasmiga oo Somaliland iyo Puntland kala celinaya waa ninka la yiraahdo Michael Keaton
inuu marka Michael Keaton Soomaaliya UN-ka wakiil uga ahaado UN-kuna ay xalna fadhiyaan oo Soomaaliya xukumaan ciidamo amisoda oo Afrikaan oo Ethiopia ka mid tahay ay xamar iyo Soomaaliya ay joogaan waxaa keenay waa wixii laga dhaxlay iyo mirihii laga helay afartii jabhadood oo qasadkoodu ahaa Maxamed Siyaad Barre iyo golihii sariic Cali Samatar xabad kaga tuura Soomaaliya kadibna waxaad galeysaan barwaaqo sooran iyo jannada adduunka tagaysan jannada adduunka ay helaan waxa weeye waa in wadanka ay xukumaan 6 sano oo Ethiopiana nin Ingiriisana oo madaxweyne ka yahay Soomaaliya baaliye marka halkaas waxa idin dhexgelinaya sheeko yar oo Soomaaliya oo fani ah mid wadaad xumaaba reebaadiye maal intuu geeliyo loo yar ka urus wuxuu oran jiray hadaad ii diidan inaad geeliyo loo yar iyo siyaarada isaysan cirkan soo duminayo maalinkii dambe geel jira helay geelikiin baa loo sheegay arrintii wuxuu ku yiri adeer wadaad waxa sameeysaa cirka sheegay soo dumi hal neef oo geeliyo hal loo ay hal ari midna lagu siin maayo cirku markuu soo dumi meeshaad ka gashaan baad ka galeynaa adiga wadaad xuma meeshaad cirka gasho markuu soo dumi baan aniga iyo reerahan adbaadi tirtiina laakiin hadda maanta cid aan u joogo wax lagu siinayo male horta aniga Cabdirashiid adinka afarta jabhadood marka ahaydeen anu sarkaal sare xoog dalka baan ahay ilaa hadda yartaan waxaan ka ahay moraalka iyo niyadan ka ah Ethiopiankana iyo Michael Keaton wadanka Soomaaliya inay joogaan iyo inay cag soo saaraan hadda konton koob baan jiray markaan xidiglaha ahaa oo 18 sano jiray maan aaminsanayn inay wadanka cag soo galiyaan xabad inaan kaga saaran aaminsanaa hadda idila hadlayo konton koob jiran xabad inaan kaga saaran aaminsanaa adinka Soomaal meeshaad ka gashaan ceebta iyo meeshaad ka gashaan magaxumada iyo meeshaad ka gashaan ihaamada ay Ethiopia iyo Kenya iyo Ingiriis iyo Mareykan iyo Talyaani iyo Faransiis oo ay xukumaan oo gaar u fadhiyaan yuhuud uu hogaaminayay kambanigii hadda koor aan sheegi jiray Rothschild oo saldhigiisu yahay mataqaana London oo 10 trillion haystay reer galbeedkana xukuma adduunkana xaraan hadda mataqaana ku haysta oo meel walba dhibaato dagaal ka sameeyay meeshaad ka gashaan horta aanu ka galahay haweeye marka nimankan reer galbeedka ahu ilaa iyo dagaalkii koowaad kii labaad adduunkan qasiyo lab badan bay ka wadaan annaguna qasiyo labkaas badan iyo dadka ay gumeystaan baan ka mid nahay hadda South Korea maxay ka wadaan iyo North Korea dagaal bay ka wadaan goormay bilaabeen dagaalka waxay bilaabeen 1900 iyo 53 1900 iyo 59 u dhamaaday South Korea waxa la soo tagay Mareykan iyo reer galbeedka Ingiriis baa la soo tagay North Korea waxa qaatay Ruushka iyo mataqaan nimanka la yiraahdo China la gareeyay North Korea xuduud buu leeyahay waan isku dad ayaga maxaa South Korea maxaa geeyay Mareykan iyo Ingiriis waxa geeyay saddexdan hadda koor idin sheegay Rothschild company-giisa Rockefeller ninkan la yiraahdo maxaan ku raahdaa Morgan nimankaas oo ah hanti goosad oo bini aadanka adduunka noo dhigimeerta ayaa reer galbeedka maalin kasta meel weerar u galiyay dagaal maxay dagaalka u galinayaan waxay u galinayaan waxay rabaan dawladaasu inay dhaqaale badan iyo maxaan ku raahdaa naf badan in dagaalkaas ku weydo kadib bangiyada ayaga iskala reer galbeedka inay dawladdu marka lacag weydiisato oo lacag badan ku dalacaan dawladuna lacagtaas maxay ka qaadaysaa dadka shacabka inay canshuurta VAT-da ku kordhiso oo marka dadka shacabka dib looga soo celiyo nimankan marka saasay ku shaqaystaan markii dagaalkii Korea dhamaaday maxay bilaabeen haddana Vietnam bay bilaabeen konton sagaalkii buu dhamaaday 60kii hore waxay ka bilaabeen Vietnam markii Korea dhamaaday 70 buu dhamaaday haddana kii waxay bilaabeen Ruushka iyo Afghanistan oo in Ruushku aad Afghanistan ayaa ka dambeeyay oo Ruushka waxa ku nool dad fara badan oo yuhuud asalkoodu yahay oo reer galbeedka Jarmalka iyo Ruushka bay ugu badan yihiin markay Carabaha ka soo qaxeen waxay u soo qaxeen Yurub xooggoodii waxay galeen Jarmalka iyo Ruushka markii Ruushkii ay kala direen 90kii ama 89kii haddana 90koodii Ciraaq bay weerar ku qaadeen markii 2003 la soo gaaray haddana Ciraaq mar kale ku noqdeen waxaas waxay raadinayaan shidaal iyo lacag bay baadigoobeen kadib haddana maxay sameeyeen Ciraaq bay burburiyeen waxay burburiyeen Liibiya Suuriya burburiyeen Soomaaliya burburiyeen waxay burburiyeen bay burburiyeen Suudaan bay hadda u socdaan Iran oo u socdaan hadda North Korea waa ka soo carareen maalmahan shalay iyo maanta waa waanba ka socotay labada Korea wada hadlaysa sababtu North Korea nuclear bay sababtay lama aadi karo in loo bootayo maahan bootana wiilkan yarka oo geesaha xirxiran leh waxa weeye ma marayso in nuclear rido iyo in lagu rido uu taagan yahay waxa weeye marka siyaasadaas adduunka ba anaga Soomaaliya ka mid nahay iyo nimankan reer galbeedka ku miisanay
Soomaaliya wax kala jarjarayana waa ayaga reer galbeedka waxa Michael Kiise noo soo diray oo xalna fadhiyana iyo ciidankiisiiba oo Mareykan iyo Ruush Mareykan iyo Ingiriis iyo Faransiis u badan waa ayaga way marka khaatumo inay laba u kala qaybsanaato waxay ku xiran tahay kow Etoobiyaanka baa kala qaybinaya Etoobiyaan iyo Kenya waxa weeye reer galbeedkuna waa nimankaas adduunka oo dhan saas ma taqaan meelba u dhibaateynaya oo hadda xataa Ukraine weerarka ku haya iyo Ruushka waxa weeye annagana saas ay noo kala qaybinaya waxa weeye marka khaatumo wax ayaga u khaas maahan oo kaligood ku gaar ah Soomaal dhan baa kala qaybsan Afrika dhan baa kala qaybsan Asia kala qaybsan Europe baa kala qaybsan oo reer galbeedka ah Ruushkiiba baa kala qaybsan waxa weeye marka nimankan Koreaankiiba kala qaybiyeen Chinese-kiiba hadda san ka faran ka galiyo oo socdaan ilaa hadda ugu taqaana ay qashqashaadaan waxa weeye marka saasa marka horta aysan khaatumo aysan dhibaatadan wax khaatumo u khaas aysan u ahayn waxa uu soo noqonayaa marka sawir guud saad arinta u fahantaan waa idin siiyay inta waa idin ku filan علي خليف قليل إنك اللي يراهو عبد الحكيم حاج عمل أذنك وحال سوق قاري وقتي أتكتجي لهذين خاتمه يعني من كان دراوشتي إنجليز كودن كحرية وكوفي الندلي هذا أنا كوفي وصونا وراضي وهذا اللي كان ميكل كيثن ماشي تاجي هذا ومنطقة وسومال ماشي تشوجا وماشي كوفي اللي جود لي وهذا اللي هي وحن حدنا هيان والله قيبود oo daraawiishtii asaga koofi la dilay oo asaga ma taqaana isku wadan yihiin arurtiisi baa hadda oo dagaalamayso wuxuu leeyahay kala celinaya marka waxay la macno tahay koofi baa hadda daraawiishtii oo laba u kala jaban oo Ingiriis laba u kala jibiyay Etoobiyana ka shaqeysta uu jiray ayuu hadda dhexdhexaadinaya arinta marka waa nasiib daro inuu maanta koofi dhexdhexaadiyo daraawiishtii asaga aastay inuu maanta dhexdhexaadiyo وأيام دروي وحان أوعنا يا درلاس لبدينا أوعنا هنا عمي ينكلي هنا قليرو مركا أمريكا تكتم هذا إنسان مقلة هي أرض أمريكي كان عادي المعلم كايد يكون نقطة وقولك كوان حداد ديدان براي مصر كصوماليا حسن على خير وحال شيء تقول هو صو ما تقانا إن ما نترى أو يتحملوا قله يحط قالها يا بني صوماليا كبنان أرض إتحان كاس قالوا شغل دون تحمر وعاد كنا قطان دارت التنرالي وحيراس كنا حدا تاس ديدان ما مضي أن شعلايو عد كركا هاي قطرت الأورنجري عنبرو نور ود أنت ود وتكتان أري بدن بيلاد هاي نبى حين أريا حقاقته ريبادي أسكنوا أري نقضوا حداد مدحوني صومالي أذهين ترتين مدبر حداد ويدين وحنو ملينا هي واحد خاتم هذا أول رنيسة وعوي مدحوينة ربتين صوماليا ونويدين لبدين السياسة الصومالية وقفة شلانتين هذه حلق على خليف قليرة أنا ضلنا بعد صوماليا كاحد وسير أنا وحنا يكون سؤال بقول لحن ضوضي حد أنا كنت يكون سنة كده وهذا سد وسير كاي دولة سابر يتيكو رئيس الملح كاي لو يكون عرتمر كيلو تجي عبد القاسم حسن بعد ما تقان سراد حسن بعد حواهي براي مصر وقفة شلانتين مرايكم باقصون نقطين حدنا ترتم بعض وقش حمر حدنا وقصوا فشلانتي حدنا وكون نقطة وترتمتي حدنا ما تقال بدون برا حدنا وقف فشلانتي أجي إن عمل الله مدبات مركب قفك هدوء وحسكودي أو فشلم وأنا فرعك قاعدة مركب مدحوين الصومالي وويد وقف فشلتان صدق لا إدين شيء متك يروح يلا حاول مركب أنا سلاسة قتل الله يا رخاتهم أي صهر رخاتهم وحنا يعني نمن كان هدي تجوا سكك حي أدو خرج على دورته حالة خاتمنا صدق قلب متبين قنطونتها حدات كتكتان لبدين إيه رفع عن دورتان مامل أيه وخاص أو رخاتهم اللي يجري هذانا إيه سمايستان هذا خاتم اللي هذا ويك على دالتي مع كمان وأدينك ببري لبدين أما مرعى يسكبدلين أما خاتمه هلا بحين أما دراويشلان هلا بحين مامور إني سماي سنة هيان عدد أو في عن أو سومالي بطل وقلمة أيان أمي سنة هاي بقول كي بقول هذا تاس كقول درايستان وحي سمانا يان إني لبض مامور سومالان يبطل إني متكبيران هذا تاس سمين ويان لب مداس دمبه
oo labaas qodob aan soo sheegay ay sameyn waayaan waxaa dhici karta si hadda yihiin inay ahaadaan ama ka sii liitaanba haddii marka liidashada iyo meesha maanta ay yaalaan oo ah inuu Michael Keaton oo Kofi mataqaan Kofi Richard Kofi ina adeerkiisa oo maanta gartiina qaadayo adinkoo qaarna ka soo jeedaan Puntland qaarna ka soo jeedaan Soomaaliya asxaabadeenay oo tukar isku leynahay intaas heerka taagantiin maanta iyo heer ka sii liita haddaad gashaan waxaan malaynayaa waxaa ka shaqaynaya laba qolo oo hadda aan meesha ku sheegin laakiin aan tuhun weyn ka qabo qolo waxa weeye qolada dhaqanka oo odayaasha ah oo reer Khaatumo waxay u kala baxaan garaadiyada qaybna waa garaadiye qaybna waa ugaashay way labada isku dar kulli wada dhimaaya garaadiyada iyo waxaan leeyahay ugaashada kulli ma dhahaye garaadiyada qayb kamid ah iyo ugaashada qayb kamid ah ayaa dhibaatadan qayb kamid ah in reer Khaatumo kala qaybsadaan caarna علي خليف قال راعان oo Siilaanyo oo ay hoos fadhiyaan ninkii leeyahay Muuse Biixi iyo Hargeyso qaarna ay raacaan ina Camay oo Cabdulle Algaas iyo ay Puntland hoos fadhiyaan waxa kale oo gadaal idin sii fadhiya oo tuhmaya niman siyaasiyiin ah dawladda hore oo Soomaaliya oo daha gadaas iyo miis koosiisa idinku hogaaminaya oo Mareykan iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo Faransiis iyo Yuhuud u shaqeynaya oo adinka fadlan ku soo idin ka dhigtay odayaashiina habal cayn isku dirahay على خليف iyo mataqaan kaliya Cabdi Xakiin Xaaji Cameyn ayagana lacag soo dirahay nimankaas ayaa marka dhibka ugu weyn oo reer Khaatumo wada tuunkaasna waan qaba waxaana tuunkayga marka xaqiijin doono ama run ama been ka dhigi doono hadaa labada qodob idin sheegay hore aad qaadataan oo aad maamul samaysataan ama labada maamul mid ku biirtaan adinkoo soo socda waad iga fakateen laakiin saa hadda tihiin yada ka soo hoos martaan waxa run idin ku noqonaysa in qolada daah dambe fadhida iyo miis koosiisa oo dawladii Soomaaliya oo 60kii iyo tii Maxamed Barre madaxda ka ahaan jirtay inay waxa ka dambeeyaan iyo odayaashiina dhaqanka taasuna waxa weeye magac xumay noqonaysa oo magacii daraawiishta iyo Soomaaliya inaad weligood horjoogo u haydeen oo gumaysiga ka xoreyseen oo magaca Soomaaliya adinku aad aasteen inkastoo daraawiishta ay Soomaaliya ay ahayd haddana hogaamiyaheedu wuxuu ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo Ismaaciil Mire magaca marka adinka askale xornimada Soomaaliya daraawiish ba askale aweye marka niman yahow sida hadda ku jirtaan saddex gabay oo midna shiidkii tiriyay midna uu tiriyay dhoodan midna uu tiriyay Axmed Sheekh Cali Heelaale saddexdaas gabay bay xaaladiinu mataqaan maanta iyagu muuqataa sayidku wuxuu gabiyay ninkii la oran jiray magaciisa maxaan ku raada ninkii la oran jiray Ali Dhuux waxa la abaar ku dhacday markaas uu gaal Ingiriis oo jooga Berbera ayuu u noqday ku waraashin u karin jiray marka sayidku wuxuu ku yiri adiguna asaga u soo gabiyay oo abtirsiya waxay galaan aadan dhagaxawe abtirsiya adeerka waa aadan dhagax abtirsiya waxay galaan aadan xamar oo abtirsiya waxay galaan eeyda reer xamar wax saas ku yiri sayidkiina wuxuu ku yiri adiguna midgaano abaan urayo Soomayso ki Ilaahay nacay oo eeyga qalimiin marka waxa weeye maanta waxa taagantihiin Soomidkii eeyga qalimay oo waxa weeye hadii Michael Keaton maanta adinkii daraawiisha idin dhexaadinayo oo Kofi Richard Kofi wakiilka soo ma taagnidiin xaaladii marka Sayid Cabdulle Xasan uu gabiyay ninkii loo rajay Cali Dhuux ha Ingiriis inay maanta idin gar qaadaan maxaa keenay waa nimanka la dirtaan wadan ka saarteen waa nimankii diyaaradda in ku duqeeyay ninka la yiraahdo dhoodan muxuu yiri arinta gabayga dhoodan wuxuu ka socdaa Ali Khaliif iyo ninkii la Cabdi Xakiin Xaaji Cameyn wuxuu yiri wuxuu arkay kuwa Maxamed Barre Utkayo ogaadeeno maalba maxtuulo galsha Barre la soo shiray oo dhahay ogaadeen baan anagu damiinkana ogaadeen ma ogo mana dirsan dhoodan marka xamar la soo gabiyo wuxuu yiri ogaadeen damiinka ma ahana yow dirsaday hawshu marka hadda Ali Khaliif galayr iyo ninka la Cabdi Xakiin Xaaji Cameyn reer Khaatumo wakiil idima dirsane idima oran Puntland noo tago Cabdulle Algaas noo ag fariiso adiga ina Cameyn adiga ina galayrna Siilaanyo iyo Muuse Biixi noo fariisana yaa idin dirsaday oo damiinka ka dhigtay ka dhax baxa reerka Mareykankiina ku soo noqon علي هلالة أحمد شيخ علي هلالة وحيد كيري
asagoo dagaal kala shaale iyo mid ka horreeyay oo qoorataag uu bixiyay idin gabayayna wuxuu idinku yiri meeshii uu idinkaga gabiyey Sayid Cabdillah soo ma taagnidin nimayo marka waxa weeye magac xumada waa la iska mayraay ama garaadyo ahaada ama ugaasyo ahaada ama labada nin hadda magacooda meesha ku xusay ahaada ama intiina kala ahaada waxa weeye magacii daraawiishtu dhulku yaalay intaad maamul samaysataan daraawiish ah oo ka xoog badan Soomaaliya butal magaca meeshu ahaa ku soo celiyo Soomaaliyana waxaan rabaa inta nafta alla iga qaadin ayadoo Soomaali galbeed soo noqotay NFD soo noqotay xataa Djibouti ku soo birtay Soomaaliya hal madaxweyne leh ayaa ina arko indhaha saara Ilaahay ka baryaya oo waliba nuclearna sida North Korea iyo Pakistan hawee ragga nuclear ka samaystay nagama raganaa badna nagama aqli badna nagama cilmi badna anaga muslim oo ka fiican oo ka aqoon fiican laakiin waxa la iska daba galay gaaladiyo diintii muslimka waxa loo qaatay in gaalada saynis artskeedu ka macna fiican tahay saynis arts wuxuu yahay mar ibir baxda ka fiican marka diin islaamka loo fiiriyo hawee marka Soomaaliya oo culimo ay madaxweynayaal ka yihiin oo nuclear leh oo shanta Soomaaliya xorowday ayaan Ilaahay ka baryahay inaan Ilaahay isaar inta nafta alla iga qabo hawee marka Soomaaliya warkaygii khaatumo ku saabsanaa iyo Soomaaliland iyo Puntland intaas aan uga harayo waxaan kaloo rabaa maagana inaan ka hadlo haddii alla naftayda ay dhawaanahan dhowr qodob oo kale oo fara badan ilaa 7 gaarahay kow waxaan rabaa inaan ugu hormariyo dad Soomaali ah oo fara badan oo qurbaha yimid oo waxa jira gaaloobay diinta ka baxay haddana waxa kala daran diinta inay ka baxaan oo gaaloobaan waxa kala daran Ilaahay bay caayaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bay caayaan Quraanka ay caayaan sunnada ay caayaan diin islaamka ay caayaan kuwaas waxaan rabaa inaan la hadlo waxaan rabaa inaan ku xijiyo haddana kuwa culimada caahi ama culimada muslimiinta ama kuwa Soomaaliyeed gaar ahaan Sheikh Bashir Ahmed Salaad bay caayaan Sheikh Nur Baruud Gurxan bay caayaan Sheikh Maxamed Cabdi Umar bay caayaan Sheikh Maxamuud Shibley caayaan Sheikh Maxamed Idris bay caayaan iyo culimada kale qolaasna waxaan rabaa inaan la hadlo ayagana waxaan ku xijinayaa qolo ayaguna qabiilooyinka Soomaaliya caaya oo shaqo ka dhigtay inay qabiilka Soomaaliya caayaan kuwaasna waa ku xijinayaa iyo ilaa 5 qodob oo kale marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob isku raaciyo haddii alla yiraahdo ayada quraan aan dul saaran rabaa qolo kasta marka warkayga caawa oo ku saabsanaa xoogiisa heer khaatumo intaasaan ku joojinayaa wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluhu aad iyo aad waa mahadsantihiin